الله 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 الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kusoo dhawaada abna official insha Allah. Muuqaalka waxaa ku baran doonaa taariikhda aasaasihii shirkadda WhatsApp. Waxaa loo yaqaanaa ninka aasaasay WhatsApp Jan wuxuu ku dhashay dowladda Ukraine. Wuxuu ku dhashay qoys sabool ah iyo xaalado nololeed oo aad u adag. Wuxuu ku biiray iskuul aad u liito oo aan lahayn suuli iyo nidaam toosan. Isaga oo 16 jir ah ayuu u haajiray Mareykanka isaga iyo qoyskiisa. Halkaasna hooyadiisa waxay ka shaqayn jirtay xanaaneeye, halka asagana uu nadaafad ahaan ugu shaqaynayay dukaan yar oo raashinka lagu iibiyo. Jan wuxuu ku biiray iskuul halkaas ku yaala, laakiin wuu la qabsan kari waayay ardayda halkaas joogta qaab nololeedkooda kala duwan awgood. Taas darteedna wuxuu had iyo jeer ahaa mid keligiis ah. Muddadan gudaheedu wuxuu bilaabay inuu barto barnaamijyada kombiyuutarka isagoo ka baranayay internetka. Waxyar kadibna wuxuu ku biiray koox jabsata oo hackers ah kombiyuutarada. Xaalad ahaan ayuu sii horumaray ilaa uu ka shaqaynayay amniga macluumaadka shirkadaha waaweyn qaarkood sida Yahoo, kadibna ka codsaday isla shaqadaas shirkadda Facebook. Xilligaas taas oo ay diiday shirkadda Facebook inay qaadato. Bilowga barnaamijka WhatsApp, Jan wuxuu saaxiibkiisii Fishman kula fikiray fikrad barnaamijka WhatsApp-ka ah sababo la xiriira duruufihii uu ku noolaa waagiisii hore, iyo sidoo kale sababo la xiriira amni xumo iyo qarsoodi la'aanta wicitaanada telefoonka. Jan wuxuu iibsaday iPhone, wuxuuna iska diiwaangeliyay App Store-ka kaliya 9 bilood markii la abuuray. Waqtigaas wuxuu xaqiiqsaday in suuqa barnaamijka uu yeelan doono mustaqbal wanaagsan. Sanadkii 2009 ayuu soo saaray application-ka WhatsApp. Xilligaasna codsi wuxuu ku tiirsanaa in fariimo lagu diro qaab bilaash ah iyadoo ku xidhan lambarka telefoonka. Tanina waxay ku jirtay oo kaliya xilligaas telefoonada BlackBerry. Waxay ka jirtay kaliya telefoonada xilligaas la isticmaalay sida BlackBerry oo kaliya bis. WhatsApp ayaa la aasaasay 2009 ilaa tirada isticmaalayaasha ay gaareen 800 milyan oo isticmaalayaal ah oo daafaha dunida ku kala nool. Waxayna samaysay ilaa Facebook ay awood u yeelatay inay ku iibsato heshiis lagu qiyaasay $19 bilyan. Qisada Jan waxaa ka baranaynaa guushu waxay u baahan tahay adkaysi, guushu waxay u baahan tahay karti, guushu waxay u baahan tahay hal abuur iyo hawlgelin. Insha Allah. Fadlan muuqaalka haddii uu ku cajabiyey subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Mahadsanideen.